qaranka micnihiisa muxuu yahay markii hadda oo gudoomiyaha qaranka aan noqoto leeyahay qarannimada horta xagee ku imaataa 91 waa la kala tagay Soomaha dawladda ku meel gaar ah Soomaha hadda rasmi waa la noqon Soomaha shanta qabiil baa ka dhex muuqata oo Soomaaliyeed hawiyada milif Muna Ahmed Abdallah ma garata marka waa kana aboowe marka qarannimadu waa qabiilada Soomaaliyeed isu tagay Muna Ahmed Abdallah adiga gudoomiye iyo waxaan ku qoraa lamaar abwaanad Soomaaliyeed aan leeyahay aniga gudoomiye u qorn gabar aqoon-yahanad Soomaaliyeed aqoon-yahanad abwaan way anigu gudoomiye taytaha isiin dow wax oo dawlad leedahay taytal gudoomiye sheegay biyo toori haydi waa ka faanaya waxa hay waa dadsan haba kaaga madamis kayga halkaas u jira ma badhawo ma wala insha Allah kiin may ma soo dhacay ma hubtaa hay igu tuur kursiga ku raxmo loo qaadi karo saan soo jeeso xaladay ha kor igu qaad ma dheeran kara waxa اوكي وانت ما adiga si ximad badnida geedkii waxa iska goyn geedka lagu xiray ma ay inuu hooyo speaker ka hay iska goyn mooyo inuu hooyo waa kan ha meel saan soo jeeso adiga bas saas ahaa haye waliba ina dhinacan u durugtid weeye si aad wariyaha u soo eegtid wax yar sidaan u bax hay ana soo ogaa ma kale hoos ma haya waynaad waasac haysataa fiiri anigu intaan u jiro si aad raaxa u heshid irtaaxi nafsaka maaragtaa انت ما أصلا كلامك ما يسكت شو هذا وحال الربي مركو كلها الله مصر مركا حق فير معانته حق الله ما فيري يا أذي كنت سو فيري سانده قفك ألا دوديس قفك ساس إن أسكو سو فيري سان على الربا حق ولقى هوتشي سريا قابدرها كسو بحث هذا مركا حق كسو بعد هاي سان سو تشيس kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka xog waran oo xiliyadan oo kale toddobaad walba aanu si toos ah idinkaga soo gudbino istuudiyaha Kalson TV uu ku leeyahay magaalada London. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadlaa arrimo kala duwan oo ku saabsan marxaladaha dadka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa doorka haweenka qurbaha ay ku leeyihiin nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo waxa iska bedelay markii ay yimaadeen qurbaha iyo horumarka ay sameeyeen haddii horumar uu jiro iyo haddii dib u dhac uu jiro intaba. barnaamijka arrimaha haweenka ayaynu toddobaadkan si weyn xoog ugu saari doonaa iyadoo haweenku ay ka mid yihiin xiliyadan tiirka ugu muhiimsan ee qoyska Soomaaliga ah. waxaa sidoo kale jira muranno xoog leh isfahmi waa u dhaxeeya ragga haweenku ma ku guuleysan karaan iyagu inay isu soo dhaweeyaan ragga isla markaana ay ka shaqeeyaan soo celinta nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. barnaamijkan arrimaha ayaynu ku falanqeynaynaa waxaa igala qayb galaysa Nadiifo Cali Faarax oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaysa Muna Ahmed Abdallah oo ah aqoon-yahanad isla markaana ah abwaanad Soomaaliyeed oo iyana degan magaalada London ee wadankan Ingiriiska. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin martida sharafta leh sida aad nooga aqbasheen ka soo qaybgalka barnaamijkeenan caawa xog waran. Nadiifo ku soo dhawow barnaamijka. su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaa waxay tahay maadaama aan jecelnahay caawa inaynu diiradda saarno haweenka aan ka bilowno ururka haweenka UK qaranka ayaad madax ka tahay. haweenka qurbaha horumar miyay sameeyeen muddadii ugu dambeysay ee dadku soo barakacay mise waxaad leedahay dib u dhac bay sameeyeen? السلام عليكم هرتا نظارة أديك إيو ولاش أقوياء إيو دمان تيفيجا كلسن إيو دمان ومدة الصوماليات دافها الدونك إيجا داونيسا وحنكو سلام يا سلامة إسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسبيشال هواينك الصوماليات ميرول بإيشوغان سجارة أيال وسلام يا مركز هدان موضوع أنتهى لنا عن أصولته أو هواينكو
qurbaha ma ku faa'iideen oo caawa mawduuca aad noogu wacdo uu yahay oo nagu casuntay mase way ku qasaareen horta haweenka Soomaaliyeed dalka ayay wax weyn u qabteen dadka ayay wax weyn u qabteen difaaca dalkooda ayay garab taagan yihiin haweenka Soomaaliyeed haddii uusan dalka ka soo bixi lahayn dalka Soomaaliya maanta nabadda aan haysano iyo qarannimada aan haysano sida ay haweenku u daafaceen dadkooda dhibaataysan ay u soo dhoofiyeen oo qofba qof u soo dhoofiyay ayaa maanta na keentay in aan saan quruxdan iyo wanaagan aan qurbihii ku joogno dalkeennina aan qof walba haween walba oo Soomaaliyeed meel walba ay joogto in ay dadkeeda Soomaaliya joogay ay biil u dirto taasna mahad waxa iska leh haweenka Soomaaliyeed ee daafaha dunida jooga ee si weyn dadkoodii iyo dalkoodiiba u difaacay marka waxaad leedahay adiga aniga waxaan aaminsanahay haweenka inay horumar weyn sameeyeen wax badan bulshada tareen oo aanay wax dhibaato ah sameeynin aaminsan oo horumar kaliya ay sameeyeen ani kullee waxaan aaminsanahay in haweenku ay meel walba ay adduunka joogaan in ay wanaag ma ahan ay xumaan sameeyeen marka haweenkuna waxay u taagan yihiin mar walba waa wanaag iyo sidii ay dadkooda wax uga qaban lahaayeen ay horumarka dalkoodana ay uga qayb qaadan lahaayeen waa tahay aad u mahadsan tahay dabcan nadiifo waxay sheegatay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed way ku qasban tahay haweenka qurbaha oo ay gudoomiye u tahay inay difaacdo wax dhaliila haweenka male bay tiri haweenku hawl badan bay qabtaan dib u dhiskay ka qayb galaan wadankii bay wax taraan dadkoodii bay wax taraan laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin inay jiraan dumar badan oo waxa ay sheegayso nadiifo aan sameeynin baa jiray leeyahay marka adiga maadaama tahay aqoon-yahanad abwaanad wax badan qurbaha joogay gaar ahaan Ingiriiska waxa ay nadiifo sheegayso ma saxba بسم الله الرحمن الرحيم نظارة وانكو سلامي أديقة إيو بحثة تلفزيون كالسن تي في إيو أمد الصومالية دمانتين نظيفو أرنت أيكا هذا الشيء divided two parties أنو كلا قاضية هي ممدة هذا الكأه وينك الصومالية وودا سحيين دمانتون هي مدان قدوميها هوينك قرنك الصومالية يوكي هي waxaan u malaynayaa adiga laftigaagu waxa tahay nin suxuufiya waad garanaysaa sistemyada caalamka iyo shuruucda u yaala wadan walba horta qaran Soomaaliyeed haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK horta title-ka kelmaddu already is wrong waxay wrong ku tahay dal markaad joogta qarankiisa dawladdiisa leh laakiin waa la doortay leedahay iyada balada waa title ay meel hadii la maqal u hadli kartaa haweenka maadaama arinta maqal meesha laba su'aalood bay isgarab yaala ma midda haweenka qaranka Soomaaliyeed midda haweenku ama waa saxan yihiin oo waa wada saxmeen ama waxba khaldan midda haweenka qaranka horta dib midda haweenka qaranka dib miyaynu dhiganaysaa middan ka bilow middan haweenka qurba joogta Soomaaliyeed haweenka ma wada xuma ma wada saxna haye haweenku ma wada khaldana oo hooyooyin sharaf leh oo fiican baa ku jira waxa ku jira kuwa badan oo waxay qabtaan iska daaya nolosha iyagu ka dhacay waxaan fiirsanayay one week ago Cabdi Xaafid oo Universal ka naadinaya caruur Soomaaliyeed cid qaadan lahayd hooyadii dhashay ma dhiman mana dheeraan wadankay joogtaa ilmaheedii baa la yaboohinayaa ciddii qaadi lahayd ma oran ka dhaa hooyadaas waa hooyo fiican oo saxan may taasa horta ka mid ah dhibka haweenka Soomaaliyeed ka haysta qurbaha haween badan oo wax qabtay dadkii iyo dalkiina wax ka qabtay way jiraan laakiin majority anagu waxaan u qabaa dib u dhac inay qurbuhu ku keenay haweenkii Soomaaliyeed caruur badan oo xabsiyada ku jirta xabsiyada ku jiraan waxa sabab u ah waxa jira mahmaah carabiyo oranaysa العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العزة والشرف guriga cilmiga qofka dhisan ee aqoonta leh wuxuu yahay guri la dhisay isagoon tiir dhexda ku lahayn jahliguna wuxuu dumiyaa guri dhexda tiir ku leh oo cisiya sharaf lahaa waxa u sababa ilmahee in la qaato nolol xumo
iyo dayac baa koosgareeyey yaa dayacay hooyadii dhashay waa tahay mahmaa kaan aabbuhu waa kala tegi karaan divorce baa dhici kara divorce baa imaan kara mas-uuliyadda ugu badan mas-uuliyadda cunugu inta uu ka gaaraya 18 hooyada ayaa iskale marka haddii hooyadii cunuga la yaboohinaya dhashay meeday kuwa xabsiga ku jira hooyadood meeday kuwa dhibaatadu haysato oo tegay oo wadamada kale loo kaxaystay hooyadood meeday war waxbaa khaldan qurbaha waxbaa khaldan haye nadiif waxaad tiri haweenka intooda badan way wanaagsan yihiin horumar bay sameeyeen dad bay soo dhoofiyeen dad dhoofin wax ma qabanaysa haddii caruurtoodii jidadka lagu hayo la leeyahay yaa qabanayo walaalkay horta taas intaan kaaga jawaabin waxaan walaashay diyaano leeyahay maadaama qarankii oo burburay maantana ay tiri qarannimada iyo guddoomiyenimada anigu waxaan ahay gabar soomaaliyeed isu keentay 5 Soomaali u kala baxdo 5 Soomaaliyeed haweenkoodii baan isu keenay 5 Soomaaliyeed qarannimada la sheegayana waa 5 beelood oo Soomaali ay u kala baxdo marka walaashay waxaan ka xumahay haddii ayadu ka dhex muuqan kuwa ayada beesheeda ka soo jeeda baa meesha ku jira waxa ka hadlaysaa ururka madaxda ka tahay ururka madaxda ka Soomaaliya dhan baa ku jirta leedahay 5 qabiil ay u kala baxdo baa ku jira oo ka dhex muuqda marka walaashay waxaan ku xumahay beesha ay ka soo jeedo way ku jiraan laakiin haddii jilib ahaan ayadu aysan ugu jirin in ay tiraahdo qaran waa burburay qaranka haddoo burburay qaranka waxaa aas-aasa 5 Soomaali qabiil ay ka soo jeedo marka walaashayna taas aad iyo aad ayaan horta ugu saxayaa may taas ayada way u soo noqon doontaa anaa ka tagtay waa ugu sii hormar aniga waa sii sheegay maanta meeshana mawduucan isugu imaano wuxuu ahaa haweenku qurbaha ma ku faa'iideen masa kuma aysan faa'iidin taasaan sii wadaynaa hadda midaan ayada u soo celin doonaa marka adoo wariye ah inta aad meesha maanta la isugu kaaya keentay arrintaas bay ahayd arrin oo haweenka qaranka Soomaaliyeed dad baa micnihii isaan ma aysan ahayn adoo wariye annadaara marka waxa weeyaan arrinta meesha mawduucan u imaanay inaadan ka bixin nadaaro mawduuciya ka hadlaysaa waxay ku tiri caruur baa la naadinayaa TV-yada la geynayaa la leeyahay yaa qaadanaya adiga waxaa tiri hooyada way wanaagsan tahay caruurtaas hooyadoodii wadankay joogtaa magaaladay wax ka joogtaa xaggee jirtaa bay ku tiri waxa aan ka hadlayno waa mawduuca gabadha Soomaaliyeed ee ilmaha laga qaatay waa boqolkiiba hal ma garatay teeda kale anagu markaan Soomaaliya joognay waxaa jiray wadankeeniba waagi barsamaadkii ee wadankeena uu ahaa dawladii dhexe ee xoog lahayd ay haysatay waxay ahayd dawlad lagu faani karo waxayna ahayd in cunuga koolada dhuuqaya iyo cunuga safaleetiga dafaaya waa Soomaaliya dhexdeeda iyo cunuga dadka dilaya ama tuuga dadka dilaya xabsiyo bay lahaan jireen Soomaaliya wadankoon nabad ah bay xabsiyo iyo jeelal ay jiri jireen marka inta dib male marka inta ayaduna xabsiyaa jira maxaa dhacay marka hooyada wax mas'uuliyada ma ka saaran hooyada mas'uuliyadu way ka saaran tahay marka ilmaha xabsiyada lagu xiray waxaan noo keenay inaan loo istaagin oo qof walba qabiil Hebland iyo Hebland inta lala baxay meel gooni la istaagay marka qadiyaduna waxay haysataa waa magacii Soomaaliyeed kii galanka shanaad ka imaaday iyo kii waqooyi bari Kenya ka imaaday iyo kii Djibouti ka imaaday iyo kii Somaliland ka imaaday iyo kii Soomaaliya ka imaadaba cunuga Soomaaliyeed oo xiran iyo cunuga la qaataba magaceenu waa magacii Soomaaliyeed ma fahantay laakiin cunug walba hooyo dhashay oo ka mas'uula hooyo walba aniga waxaan dhihi karaa hooyada Soomaaliyeed sharaf bay leedahay hooyo ciyaal suuqa ama hooyo ilmaheeda dan la'aan looga qaadanayo inaysan jirin baan aaminsanahay aniga waayahay arrintaa waa usoo noqonaynaa arrinta ay ku leedahay muna xoogaa yar way ku yara qaldan tahay oo in ururka qaranka ay ka hadasho ma ahayn mawduuca aan caawa u joognayna ma ahayn ururka qaranka waa urur dhisan Soomaaliya oo dhan ku jirto qof ka maqan ma jiro adigu taa ma aragtaa ingiriisku waxay yiraahdaan charlatan eri ay yiraahdaan baa jira sheegata yiraahdaan sheegata macnaheedu waxa weeye qofku markuu qaato title uusan lahayn ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed markaan ku iraado magaalada tan dadka jooga ee Soomaaliyeed ee qurbe joogta diasporada ah horta qaran maba matali karaan qofkii shaqo doonaya ee isagu qarankii inuu rabo inuu shaqo ka doonto Soomaaliya qarankii jira dalka Ingiriiska yaa u qarana government and nation baa la yiraahdaa dalka Ingiriiska anigu hadda inta istaaga ma oran karaa waxaan ahay qaran haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK horta UK qaran Soomaaliyeed kama jiro diblomaasi baa iman kara
laakiin haween badan baa jooga hadday doorteen oo gudoomiye doorashaha meesha yaala ma jiree jaarlatan baa jirta hadda laba gudoomiye kale oo waxaan ogahay sheegtay haweenka qaranka Soomaaliyeed haye mid Shukri Dalbaas baa la yiraahdaa haye Faaduma Jees gabar la yiraahdaa jidha haweenka qaranka xaflad bay waxay ku qabsatay Blue Ocean haye gudoomiyaha gabdhaha haweenka qaranka diasporada UK baan ahay bay Faaduma Jees haye Shukri Dalbaas waxay tiri waxaan ahay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed haye gabadhan way isku haysteen oo dhibaato laakiin nadiifa ka horeysay miya anigu garan maayo wax horeeyay haye bal hadda idagayso wax horeeyay iyo wax dambeeyay garan maayo haye Soomaalidana horta sideeda ayaan been laga sheegin been wuxuu yiri agaasime aan alif aqooninki ka gudub waxa weeyaan qofka bili aadanka ah oo taytalka u qaadanayo mujtamaca Soomaaliyeed inta isugu yimaado nadiifa waa in mujtamaca Soomaaliyeed inta yimaado u doorto oo yiraahdaa nadiifa waxay matalaysaa gabdhihii diasporada laakiin nadiifa waxay nadiifa qaran meesha ma yaalo laakiin nadiifa waxay tiri qaran isma beer waxaan gudoomiye u ahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan gaballe haye ayaa waxay tahay gudoomiyaha waa gudaha Soomaaliya taas gudaha Soomaaliya gabadhan kelmad gabadhan mid aniga waa ka sadaqaya laakiin mid kama sadaqayo waayo aqoon hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun buu yiri ilaahay war kuwa wax garanaya iyo kuwa aan garanay ma isku mid baa war meeshan ma dawlad Ingiriis aba iskale qaran haduu jiro waa qaranka UK haye inagu diasporaynu nahay qofka qaranki isagu inta shaqada laakiin hadal yar oo ay tiri baad ilowday waxay ku tiri adiga hadii jufa ahaan aad ugu jirin laakiin taaba diidan tahay ku tiri oo ururku waa ballaaran Soomaaliya oo dhan baa ku jirta assalaamu calaykum waxa la yiri meel loo hodin horseed wadin looma hadsho waa hawiranta laba kala maqan laba gabdhood oo kale gudoomiye sheegtay hadalka waan ka sugaynay forget about is keep your arms dhagayso gabadhan gudoomiye haween qaran Soomaaliyeed ma ayadu istiri aniga general idhaha aniga madaxweyne idhaha gudoomiye idhaha Muqdisho iyo waxay ka socotaa Soomaaliya ayadu ma sidoodii tix raacday kuwii noocaas ahaa ayadu Soomaaliya dooratay Soomaaliya haday dooratay hadeer soo mugdi kuma jiro anigu mugdi ma gelin gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan inta isu keento xaflad gabadhaas dhigto oo aan la dhigno haday muwaafaqa bayna darafeen yiraahdaan waa ogolahay waliba dibloomada u horeysan guddoonsiinaya laakiin haday tahay aniga jirto xagee lagu doortay xagee waxay wadataa documenti iyo wax walba foogada bad waxa laga sameeyaa meeshan waxa laga sameeyaa export street ayaa laga sameeyaa certificate-yadan xunxunka ah ma garanaysaa everywhere baa laga sameeyaa waa la print gareeyaa waxa kombiyuutarada laga print gareeyaa waa sida bartideeyado kale laakiin waxa jira ayada waxaan leeyahay golo dhexe gudoomiye ku xigeenno ururkayga dhisan yahay shirar badan baan ka qayb galaa madaxda dawladda soo dhaweeyaa cid walba timaadaan soo dhaweeyaa meeshan madax dawladeed ma jirto Soomaaliya 91 bay waxay u burbudhay qabaa'il waa ku kala maqan tahay may maqlaysaa waa ku kala maqan tahay dawlad federaal ah oo baarlamaankeeda iyo wasiiradeeda iyo dhisan yihiin Muqdisho waa ka jidha wuxuu yiri ninkii looma dhama horta waxaan loo dhamayn baa jiro waa qarankii Soomaaliyeed iyo nabadii Soomaaliyeed looma dhama 24 madaxweyne ayagoo maraya maamul goboleedyadu ayaa doorashadii Muqdisho dhacday anigu waan joogay wax maamul goboleedaha ka horeeyay dawladana waxa jiray Jubba Puntland iyo Somaliland oo iyadu tiri anagu iska yaan u madax banaana mise waa beentay waxa horta wanaagsan ummadu waxayan ku aqoon inaadan sheegan gudoomiye qaran war qaranka Ingiriiska wax alla waxa qaran oo ka jira UK Ingiriiska anaga diaspora ah iyo qubajo waa tahay mawduuceeni oo ku saabsanaa arinta haweenka oo aan caawa u nimid waxa moodaa in arin kale ay soo dhax gashay arintii mawduuca oo soo noqonayna hal mid ah waxaan ka rabaa ina u sharaxdo ururkaaga soo u dhisan yahay nidaamkiisa dad badan baana daawanaya muna waxay tiri wax ka jira lama arko cid ku dooratay lama arko qaabka ururkaaga ku dhismay dadka marqaati ka ah ma noo sheegi kartaa mawduucii oo soo noqonayna adoo raalay walaalkay horta walaashay gabadha ay ka dhawaajisay ee Blue Ocean lagu doortay ee Faaduma Jeesta ah gabdhii Puntland baa doortay
وهرب Soomaali uma dhameyn وهرب بوتلان بقى haye ما قرأتي فاطمة جيستو هذا بوتلان نظيف هو waxay rukaad haye سوغي وهرب بوتلان قبضاس haye شكر الباسا كو soo hartay شكر الباسا haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK ayay secretary noo ahayd waa gabar sport ahayd sport qaran soo ahayd haday magac qaran sheegatana de sport ay soo ciyaari jirtay oo lama dhihi karo qaran ma sheegi kartid laakiin haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK bay secretary u ahayd haddana ayadoo sport oo qarana ila qofka hadoo waa sport ahayd kaaga suu ku dhisan yahay u sharax sugay marka waxa la isku haystaa shugrina maanta waxay wadataa magac la yiraahdo Somali Mother International hooyo Soomaaliyeed oo caalami ah waanu ku soo dhaweynaa walaashay shugr dalbaas ururka ay wadato ma fahantay marka walaashay marka meeshan taytalada la haysto National Day of Mother marka Faadumo Jesto gabadhay walaashay sheegayso oo Blue Ocean lagu magacaabay waa gabadhii reer Puntland bay haweenku u tahay ana haddaan reer Daynilo haweenka aan gudoomiye ugu noqdo haddana kii Soomaali weyn oo qarannimadii oo shanta qabiilood aan dili karaa taasoo uma dooran adiga waa la doorta aniga suudan ku sheegay taasaan rabaa inaan u sharaxo maya anaga waxaan ku wadaa anigu haddaan reer Daynilo ahay anoo Daynilo haweenkiisana gudoomiye u ah baan haddana shantii Soomaaliyeed qabaa'iladoodii ay micni gudoomiyeen ay doorteen oo ugu ahay gudoomiye gabar gada ka soo jeedana waxay ay tahay gudoomiye ku xigeen gabar sool iyo Sanaag Khartoum state ka soo jeegtana waa agaasimaha haweenka ay tahay marka waxaan walaashay u sheegayaa meesha cid iga maqan cidii kala dan dufu ugu dhigayana ma ogi marka aniga lay dooranaya haday ayada si joogina haday ayada joogin horta ayada ogaa wixii dhacay diyaana waa reer Puntland marka gabar reer Puntlandna Puntland miya gabar Soomaaliyeed maya Puntland baa taa waas ognahay maxaa isku ognahay Puntland tahay waa Soomaaliyeed baa maya ablanku waa kala baxay anigu Puntland marka Puntland ma aragta haday Puntland ahayn meel walbo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya soo istaagayo bay soo istaagi lahayd marka waxay noo muujisay xanaaqa yarka ay Puntland galay ayadoo inuu galay ila wareer Puntland ayada haweenka qaranka hadda kama tirsana may gabdhaha kala ka dhisan oo ka tirsan ayada beeshay anigu kamid miya ayana waa gudoomiye qaranka maya adigu daafiri yaa u talaysaa anigu hadaan adigu Xasan Sheekh Maxamuud markuu imaanayay mikrofoonka waxaad ku tiri maxasuustaa waxaad ku tiri ها ما حسيت هذا كهر السلام عليكم ما يرد حسيت السلام عليكم مركا تاسو وضعنا مشرحات هذا ايضا ما حسن شيخ محمد حسن شيخ محمد مدحوينه الصوماليه فوق قدم بودان ما دغيسو حسن شيخ محمد ادو وكيل كبتي ما انا مدحوينه قرنكا مدحوينه الصوماليه ويا حسن شيخ محمد هداي نقطه قرابيسنا انغا بي فاميلي حسن شيخ محمد عروتيدا اديركود ام بعروتيدا اديركود ام بعروتيدا haye adeer munaasibkayga ahayn may laakiin adigu waxay kugu eedaysay ma ay fahmin iyadu waxay tiri waxaan ahay gabar qaran Soomaaliyeed adigu hal dhinac baad u go'aysaa salaam alaykum horta Puntland waa baaxis Soomaaliya Soomaaliya hadda doodana uu istaahilaa hada huwa asan qarnimada ku difaacay haye waxay fiiri horta waxaan oo kale inaad igu yeedhaba horta Xasan Sheekh Maxamuud waxay horta u kaadi waxaan rabaa inaad ka jawaabto waxay ku tiri war umada been yaa laga dhaadhicin war umada yaan been loo sheegin war ilaahay inna lahu la yastahi min haq war umadi waa kala tagtay umadi dalkii ay lahayd inta la isku soo celiyay miyaa lagu heshiisiyay war meeshan diyaas barada UK baa leeyahay waad arkaysa ragga wixii ka taagnaa waad arkaysa laakiin meesha laftirkeeda adiga gabadha aad ku haysato waxa jira jaaliyada jirta gabadhan nadaara reer Puntland in la soo fariisto ana qaran Soomaaliyeed matalaya yaa aaba qalad ugu ahayd ma laakiin iyadu wali waxay leedahay qaranka matalaysa xagee ka dhisay ana ay wacdo ma ahayn xagee baan maamul goboleed ahay xagee baan maamul goboleed ahay hadii Puntland maamul goboleed tahay Muqdisho waa maamul goboleed Kismaayana waa maamul goboleed shabeellooyinku waa maamul goboleed horta Soomaaliya hadii qarankii qabiil xambaarsado way iska tagaysaa waa wada waa tahay arinta waxaan su'aal kale ku weydiinaya su'aal kale midaan haweenka qaranka iyo u soo noqonaynaa waxaad tiri
hal su'aal baan ku weydiinaya waxaa tiri waddankan waxba lagama waa u soo noqonayna waddankan waxay rukaadi maya hal su'aalaan ku weydiinaya horta waxaad dhegeyso hal arrin aan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa tiri waddankan waxaa leedahay ingiriiska lagama dhigi karo ururo laguma dhawaaqi karo laakiin waxaa jira jaaliyada soomaalida jirta oo hadda sidaad og tahay laysku haysto ilaa 2 gruub u qaybsan wax badan baa jira jaaliyada Soomaaliya oo halkan ka dhisan anagu nin baa la doortay anigu waa ka soo qayb galay doorashadii ninka waxa leeyahay Maxamed Ismaaciil Atoore nin baa garab istaagay in adeerkiisa meel walba inta la istaago yiri anagu waxaan ahay gudoomiyaha diasporada UK Atoore ma sheegan qaran diasporada wuxuu yiri gudoomiyaha diasporada UK baa loo doortay Soomaaliya oo dhan baa isaga timi inta UK ku nool adigu waa ka qayb gashay anigu waa ka qayb galay waxa lagu dhigay Soomaalina uga qayb gashay Soomaalina uga qayb galay waxa marka socoto ma taqaana aniga idhe qaran ba meel u ka jira ayan jirin baa socda meeshan diyaas baraynu nahay inagu adigu ma qaran idaacada qaranka ee Soomaaliya ma loo kara meeshan qaran Soomaaliyeed oo UK ka dhisan ma jiro Somaliland waa maqantahay state bay u istaagtay Puntland waa maqan tahay Jubbaland waa maqan tahay Galmudug waa maqan tahay Xubin iyo Xeeb waa maqan tahay Bay iyo Bakool lama hayo gabar baa halkan ka soo booday gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed baana gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed waxa laga dhigaa qaranka Soomaaliyeed laakiin Somaliland calanka noorin hadday haysato dukumeenti cadeynayo la yaqaano iyo reer qaatumo waqooyi baa la dhigi jiray calan bay noo keeneen sharaf bayna leeyihiin Somaliland iyo reer dad Soomaaliyeed waqooyiga la isku oran jiray laakiin Puntland gooni baa u baxay iyo cirkan gal hadaa tiraahdo Puntland qafiyada guryaha kama maxay tahay Puntland Somaliland sharaf bay leedahay shan iska daa Somaliland leedahay sharaf Somaliland kuma guran waqooyi meelaha wadi Puntland qafiyada waqooyi iyo koonfur Puntland ma kufsan gabdhihii aqradihii Soomaaliyeed adinka fiiqateen waliba kuma maqna موضوعي أوصل نقولنا ترسني هذا وايه بابا بطلان قد كأي كبحضبا موضوعي أوصل نقولنا وحي ركاد حوجا كلا حشون ضد بدن بان الدعوة واحد مات موضوعي أوصل نقولنا هذا وحن كوير بس موضوعي أوصل موضوعي أوصل موضوعي عن بطيني لا يبري يساب بطلان قبيلان وتايتري قبيلان هيستايتري لكن تايني وبيل ير ماشي لكن أدوك بطلان محل إلا قاتنا ترى هذين بطلان وين انتي قاتمه واحد هاسكو قسبنا وقرن صوماليا وقرن صوماليا يصير مجرو قرن صوماليا قاتم هنولاتو قبيل أهان ماركتا كون راعينيس أبي قاتمو أدبان أبحماي قدر حيسيس واسكو نقولنا قدر يرى حيسيس أنا مرضا بها يقول يري مايا بس داود